arraydu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay tahay inaad si fiican u fahanto marka aad baranayso JavaScript. muuqaalkan oo ah muuqaalkii afraad ee taxanaheennii barashada JavaScript waxaan kugula wadaagi doonaa waxa ay tahay arrayda, sida aad u isticmaali karto iyo waxyaabaha ay kaa caawinayso. balse ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like aad saarto, sidoo kalena channelka haddii aad weli kusoo biirin aad nagu soo biirto. waa maxay arraydu waa sida objectiga oo kale. objectiga muuqaalka hore aan isla soo aragnay waa variable ayaad oran kartaa kuwa hayn kara in ka badan hal value ama values badan, isla markaana valuegaasi data type-kooda ay kala duwanaan karaan. tusaale ahaan sida imka muuqaalka ka muuqata waxaan halka ku sameeyey arraydaasina waxay noo haysaa values badan ama dhowr value, isla markaana data typeskooda ay kala duwan yihiin. waxyaabaha ay kaa caawinayso arrayda markaa wax ka mid ah, tusaalahaan haddii aad haysato boqolaal magaalo magacyadooda way kugu adkaanaysaa in magaalo walba variable iyada u gaara aad u samayso. sida tusaale ahaan inaad tiraahdo let Hargeysa is equal to Hargeysa ama let Muqdisho is equal to Muqdisho, waxay noqonaysaa inaad boqolaal variable aad qeexato. balse haddii aad array isticmaasho, array ayaad qeexanaysaa kadibna waxaad ku ridanaysaa boqolaalkaasi magac. markaad access garaynayso magaca arrayda ayuunbaad u yeeraysaa, kadibna indexka ayuunbaad raacinaysaa elementigaasi. si aan u access garayno markaa arrayda, ugu horeyn halkan HTML waxaan ku diyaarsaday elementigaas ayaan rabaa marka output-keena inaan kusoo muujiyo. waxaan siiyey ID la yiraahdo result. haddii aan markaa fileka JavaScript aan kusoo noqdo, ugu horeyn waxaan u yeeray elementigii anoo ID isticmaalayo .get element by ID, kadibna waxaan yiri .inner HTML is equal to cities oo ah arrayda magaceeda. marka imika waxaan rabaa in aan access gareeyo value-ga ugu horeeya ama elementiga ugu horeeya. si aan u access gareeyo waxaan raaci doonaa brackets kadibna 0. waa qaabka loo access gareeyo value-ga ugu horeeya. marka si aan u access gareeyo elementiga ugu horeeya ma qori doono 1, sababtoo ah programmingka tirada kama bilaabato 1 ee wax ka bilaabataa 0. si marka arrayda waxyaabaha ay haysto dhan aad u access garayso, waxaad ka reebaysaa bracketskan, yacni valueska ku haysto dhan haddaad doonayso inay kuu soo bandhigto ama kuu soo muujiso, waxaad ka reebaysaa bracketska. waxaa kaliya waxaad qoraysaa magaca arrayda. waxaa jira markaa waxa la yiraahdo methodskaasi markaa waa functions JavaScript ku dhisan oo loogu talagalay in arrayda aad kula macaamisho oo aad wax kaga badbadasho ama aad waxaad kula macaamisho. functionskaasi markaa laba ayuu kala baxaan. waxa la yiraahdo higher order array methods oo muuqaalka ku xiga aan ku sharaxi doono iyaga, iyo methods kale oo yaryar oo arrayda waxyaabo yar loogu bedelo. sida tusaale ahaan marka aad rabto arrayda in aad ku darto element cusub ama value cusub, oo aad isla markaa aad rabto inaad xagga hore kaga darto iyo marka aad rabto inaad xagga dambe kaga darto, ama marka aad rabto inaad value-ga ugu horeeya ama elementiga ugu horeeya aad ka saarto aad delete garayso, ama elementiga ugu dambeeya inaad delete garayso marka aad rabto. methodska la isticmaalo ayaan isla arki doonaa. methodskaasi markaa waxa ugu horeeya unshift-ga markaa waxaa loo isticmaalaa in lagu daro element cusub arrayda, in element cusub lagu daro waliba xagga hore looga daro. methodska la isticmaalo soo kale waxa ka mid ah shiftdu markaa waxa weeyaan cagsiga unshift. iyadu waxa ay ka saaraysaa ama ay delete garaynaysaa elementiga ugu horeeya ayada delete garaynaysaa. methodska aad adeegsan karto waxaa ka mid ah bushtaydana waxaa loo isticmaalaa in element cusub lagu daro arrayda xaggeeda dambe, in element cusub lagu daro. methodska aad adeegsan karto sidoo kale waxaa ka mid ah babka waxaa loo adeegsadaa isna in bushta cagsigeeda ayuu u shaqeeyaa, oo waxaa loo adeegsadaa in lagu delete gareeyo ama laga saaro elementiga ugu dambeeya arrayda ay ku hayso. methodska markaa yaryar ugu caansan afartaas ayaa ka mid ah, aad ay u badan yihiin, haddaad doonto sii baari kartaan. marka aad rabto markaa inaad wax ka bedesho elementska arraydaas ay ku hayso ama valueskooda, waxaad u yeeraysaa magaca arrayda kadibna index ayaad isticmaalaysaa. tusaalahaan marka aan rabo god labaad inaan wax ka bedelo oo markaa noqonayo 1, marka tirada 0 laga soo bilaabo Hargeysa ayaan wax ku bedeli doonaa Burco. saas ayaa loogu bedelaa. marka aad doonayso elementiga value ku hayo inaad bedesho, magaca arrayda ayaad u yeeraysaa kadibna indexka ayaad raacinaysaa, kadibna equal ayaad oranaysaa, kadibna waxaad raacinaysaa value cusub ee ku hayn doono. intaas ayaan kusoo koobi doonaa saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. haddii uu muuqaalkan ku caawiyey, like saar adna like ku caawi, sidoo kale nagu soo biir dad nagu soo biirin muuqaalka xigeentan ku kulmayno. saa iyo nabadgelyo.